saraakiisha ciidanka booliiska galmudug ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay xaaladda amniga wadada isku xirta gaalkacyo iyo dhuusamareeb kadib markii maalmihii u dambeeyay ay soo ifbaxeen warar sheegaya jidgooyooyin sharci darro la dhigay kuwa oo lagu dhibaateynayo bulshada Soomaaliyeed. taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska galmudug gaashaanle sare Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo wareysi gaar maanta siiyay xafiiska warqabadka warbaahinta qaranka ee gobolka Mudug ayaa beeniyay in amni darro ay halkaasi ka jirto isagoo ka digay in bulshada lagu dhaxfaafiyo warar been abuura warbaahinta qaarkood oo maalin walba samaysa warar khaldan iyo masabidasho idaacadda ama mahasha la dhaho Facebook ayaan xalay waxaan ku arkayay masawir aniga aan leeyahay oo saaran oo la saaray warbixin la leeyahay dhuusamareeb iyo gaalkacyo inta u dhaxaysa isbaarooyin baa qabsaday dawladda galmudugna waxba waa ka qaban weyday arrintaa waa been abuur ee Soomaaliya dagaal badan ahliya iyo dhibaatay soo marnay ayadoo ay sidaas tahay haddana annagu hadda galmudug ahaan muxuu ahaay amni baan haysanaa aan runtii ku faani karno ilaahayna siiyay ciidamadii baan noo shaqeynaya biliiska militariga shaqeynaya daraawiishtii baa shaqeynaysa odayaashii baa shaqeynaysa bulshadii baa shaqeynaysa amni runtii lagu faani karaan haysanaa maantay dadka marka calqaladeynaya oo beenta iyo barabagaanka sheegaya waan la xisaabtamaynaa waxaan uga degaynaa dadka arrimaha ku shaqeysta oo barabagaanka ku shaqeeya inaan u dulqaadan doonin wixii hadda ka dambeeya hadalka ka soo baxay taliska ciidanka booliiska galmudug ayaa imaanaya xilli ay socdaan howlgallo lagu sugayo amniga sidoo kalena xaaladda ammaan ee guud ahaan deegaanada galmudug ay tahay mid aad u wanaagsan. Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.